السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada presentationkeena maanta oo aan kaga hadli doono sida aad gurigaaga jooga uga samayn lahayd dhaqaale dhaxalgal ah kamaniga loo yaqaano My Daily Choice. Magacaygu marka hore waa Rooda Cilmi, waxaan ku suganahay dalka Canada, waxaan kamid ahay kamanigan, waxaan ahay independent affiliate, waxaan kamid noqday kamanigan sanadkan 2022ka. run ahaantii waa kambani Mareykanka laga leeyahay. Profilkiisu haddii aad rabtaan inaad xirka ogaataan iyo cidda aasaastay waxaan idinkula sheer garayn doonaa anigoo inoo soo ururinaya waqtigana inoo ilaalinaya maadaama waqtigu nagu yar yahay. Kambaniga waxaa aasaasay Josh iyo Jan Iswagli, waa lamaane isqaba oo reer Mareykan ah. xafiiskiisa kambanigan head officekiisa ama xaruntiisa weyn waxay ku taalaa Las Vegas bay ku taalaa. kambaniga waxaa la aasaasay 2014kii. labadaa qof ee aasaasay iyaga laftigooda industrigan MLM-ka ama loo yaqaano network marketingka kamid ayay ahaayeen muddo badan. Almost 15 years ayuu Josh Iswagli kamid ahaa. 15 sano uu ku jiray, wixii uu ka bartay experience-kii khibradii uga korodhay ayuu wuxuu u go'aansaday in uu sameeyo kambani isaga uu leeyahay, kadibna uu dadka uga faa'iideeyo. waxay dhahdaan founded by affiliates for affiliates ayay halhayskoodu uu yahay. Affiliates baan kambanigan aasaasay oo salka u dhigay, affiliate baana loogu talagalay. markay haddaba bilaabayeen kambaniga waxay ku bilaabeen wax yar oo basiid ah. 3 shay ee halka idinka muuqda oo spray ah ayay ku bilaabeen. Sprayadan hadda waynu arki doonaa, xagga dambe ka arki doonaa alaabada kambaniga uu soo saaray ayay kamid tahay. laakiin kambanigan markii la aasaasayay gundhigiisii waxa ka qayb qaatay 3 xabo ayay ahaayeen. spraygan oo loo yaqaano Boost iyo Peak iyo Shield, 3 xabo ku bilaabeen. iyagoo halkaa kasoo bilaabay maanta halkay marayaan haddaba subxaan allah. kambanigani waxa uu u kobcay si qeyr alxad ah oo aynaan shaqo ku lahayn. waxa uu hadda marayaa saleska ay sameeyeen sanadkan lasoo dhaafay almost 450 milyan ayay marayaan iyo plus weliba dheeraad. waxa ay haystaan 800 oo kun oo macmiil. waxa kale oo ka shaqeeya oo alaabtiisa suuq geeya 300 oo kun oo shakhsi sida anigoo kale. subxaan allah. waxaa lagu soo qoray amaba lagaga waramay intaas oo magaasiin amaba jarnaalo oo ka sheekeeya businesska iyo garoodka businessyada si u kala maaragtay revenue-goodu u kala sareeyo. sanad kasta mid baa u sareeya xagga hore top 10ka ku jira. kambaniga mar walba wuxuu ku jiraa marka aad eegtid specially waxaa jira maqaalo badan oo laga qoro ganacsiyada noocan online-ka. top 10kaasu kamid yahay ama 4 ama 3 ama 5 buu kaga jiraa mar walba markaad eegtid kambaniyada. subxaan allah, awaado badan baa la siiyey. waa kambani run ahaantii aad iyo aad iyo aad ay dadku ugu bogeen. sababtuna wax kale maaha, waa laba wax. mid waxa weeyaan alaabada uu iibiyo ah alaabo run ahaantii iyaga u gaar ah, gaar ha u ahaatee laakiin guri kasta looga baahan yahay. xagga dambe inaan ku arki doonaa insha allah, laakiin waan idiin sii yara sheegaya. iyo qaabka compensation plankiisa amaba dhaqaalaha looga sameeyo. okay, waa tan MDC waa ayo ama My Daily Choice waxay usoo gaabiyaan MDC muxuu yahay. MDC 4 qodob baa lagu soo qaataa oo ay kamid yihiin marka hore inuu yahay house of brands. waa wixii aan hadda idiin sheegayay. waxa weeyaan wax walba haye dukaanada qaar ma looran jiro wax walba haye. waxa weeyaan meel aad wax walba ka helayso oo gurigaaga u baahan yahay, waxay doonto haba ha noqotee. marka labaad waxay leeyihiin affiliate program oo ah kan run ahaantii qaabka ganacsiga loogu soo galay. affiliate-ka macnihiisu waxa weeyaan alaabta adigu iskama lihid, kambani baa iskale, waad qaadaa waad suuq geysaa. mana aha inaad alaabtii soo guratood gurigaaga dhigtood sii iibsid. retail ma tihid. waxa weeyaan waad soo qaadaysaa kambaniga, waxaad kamid noqonaysaa actually xubin baad ka noqonaysaa, affiliate baad noqonaysaa, alaabtaad xayeysiinaysaa, dadkaad la wadaagaysaa, waa lagaa iibsanaya. kadib maxaad leedahay mushqaayadaadii, commissionkaaga baad leedahay adigu. waa saasoo kale dilaalkii baad noqonaysaa. marka affiliate program bilayn compensation-kooda kaga hadli doona xagga dambe in yar. waxaanay bixiyaan up to 85% ayay bixiyaan oo ah business volume waxa loo yaqaano oo complan-kooda kamid ah. gabadha Jana markay ka sheekeynaysa xaaskiisa mar walba waxay tiraahdaa markii aan kambanigan aasaasay labadooduba way kusoo gubteen meeshan industry-ga 15 sano kusoo jira. waxay dhahdaan waxa aan kula hadlay tiri ninkayga Josh, waxaan ku riday waa in uu kambanigani ka duwanaado kambaniyadii kale. haddii aynu ku celino uun history repeat itself haddaynu kaga dhigno aynu waxaynu inagu soo aragno dadkana la dabagalno waa dhib bay tiri. waa inuu fair noqdo, balance inuu noqdo weeyaan bay tiri. wax yacni cadaali ah inuu noqdo. marka tiibay dabada hayaan ilaa hadda oo cadaali bay ka dhigeen kambanigan. waxaana weeyaan qaabka lacagta looga sameeyaad ka arki kartaa. xagga dambe aynu ka arki karnaa qof kastoo u dadaala oo ka shaqaysta inuu dhaqaale dhaxalgal ah ka samaynayo oo shaqo kaga maarmaayo. midda saddexaad waxa weyn technology aan lala tartami karin ayay haystaan oo kambaniyada la midka ah ee maanta suuqa ku jira aanay la tartami karin bay haystaan. taana qofka kamid ah ayuunba ogaan kara oo anigu hadda si yaroo easy oo fudud oo aan waqti igaga lumin baan u sheer gareeya alaabada iyo ganacsiga labadaba.
waxaana leeyihiin qodobka afraad oo ah culture aad u wanaagsan run ahaantii ay leeyihiin oo community bay leeyihiin aad ka mid noqonayso ku taageeraysa ku support garaynaysa from day one marka aad soo gashid luga gacanka qabanayo sidii aad ganacsigaaga uga madha dhalin lahayd trainingkaaga everything lagu siinayo afartaa qodob ayay kaga duwan yihiin okay waa kan haddaba house of brands aqal danoo wada alaaba weeyaan waa wax walba hayaan idiin sheegaya waxay hayaan alaabo kala duwan oo tirada ka badatay ayay hayaan sawiradoodu brand kasta waa tan mid kasta weeyaan waa wax kastood u baahata halkan aynu kusii eegi doonaa tan koobaad waxa weeyaan daily sprays waa sprayadii ay kasoo bilaabeen saddexda xaba ahaabay halkii kasii amba qaadeen almost 10 bay hadda marayaan mise 11 tiradii bay sii badiyeen mid kastaan wax gaar ay tartaa iyagana xagga dambe aynu ku arki doonaa brandka kale isagana loo yaqaano hemworks dad badan hem waa taqaana baan malaynaya geedka hem la yidhahdo waa geed baxa dukaanada istoorada waxaad ku arkaysaa hem seed iyadoo la iibinayo waxyaala hem laga soo sameeyey waa geed dabiici oo baxa run ahaantii oo faa'iidooyin tiro badan leh marka waxay ka sameeyeen baashan CBD oilsha loo yaqaano run ahaantii aad u fiican oo dad badan oo tiro ka badan testimonigan xagga dambe ka arki doona waxyaalaha u tartay dadka qaare ay ka faa'iideen jid ahaan maskax ahaan waxyaalo badan ay u tartay qaybta kale waxay leeyihiin body melt amaba haddii aad doonayso matalan oo kale inaad weight la samayso oo aad complete package qaadato waxay leeyihiin protein sheegyadii oo protein ku siinaya ay leeyihiin everything bay leeyihiin xagga dambe iyadana ku arki doonaa mantara mid leeyahay bay leeyihiin oo iyadana isugu jirta essential oil iyo waxa way xagga dambe ku arki doonaa house of brands kooda weli sii soconaya halka kuma istaagin cosmetology oo brandki makeupka beyond oo isaguna chocolate iyo waxyaala energyga dharkii akashax oo qofka doonaya forex iyo cryptocurrency waxaynu ka faa'iideysto loogu talagalay iyo mid dadka dhanka wareeriyo oo tarafala ay leeyihiin oo adduunka dhani hadda dadka qaarooni ay ku leeyihiin tarafalkaas ma banu soo gelinaaba anagu travel agency baan haysano tan baanu ka faa'iideysanayna ay koodhanayaan dad badan moogta ay leeyahay maxay noogu horeeyay spraydi bay noogu horeeyay oo xabad xabad halkan magaceedeeda la inoo tusaayo anigu hadda waxaan isticmaalaa kan trim teedi ku qoran tahay trim 365 core keto iyo shield saddexda waxa u yaqaanaan the fat plaster kit ba u yaqaanaan saddexda qofka israacsada weyd la sameynaya ama baraba inuu waxoogaa miisaan ah iska rido wuxuu isticmaalaya saddexdaas oo isla socda waxaan kuri khalaas ba ku dhamaatay haddii aad doonayso inaad borotiinadii iyo wixii isticmaashana waad ku darsanaysaa iyagana nafaqada yeesho maxay bahalahan ku fiican yihiin haddaba waa easy halkaad kaniina iyo waxaan kuri capsule iyo maxa iyo ka liq lahayd waa bahal Europe laga sameeyay technology ka faa'iideysteen iyo science-ka ay uga faa'iideysteen hadda adduunka hore u maray baagaagad ku ridaysaa meel kasta aad u qaadanaysaa anywhere waxaan kuri boorsaada yar aad libsta ku qaadato ku qaadanaysaa wiilasha jeebadooda ku ridanayaan wax ku culaysanaya maaha 8 jeer bad carabkooda bif ku siinaysaa isla markaaba 30 second bad ku haynaysaa waxay la falgelaysaa jirkii 15 daqiiqo kadib waxaad dareemaysaa effect baad dareemaysaa wixii way shaqaynaysaa hawsheedii bay qabsanaysaa waxay ka kooban tahay waxaas oo kala duwan oo aad haddii aad doonayso macluumaad dheer inaad ka hesho qofkii ku soo cusmay ama linkii kuu soo diray ama fiidiyoga kula wadaagay aad ku noqon doontid uu kuu sharxi doono iyagoo dhan oo mid kasta shiid bay wadataa sharaxaya mukawanaadka ay ka kooban tahay ama waxa laga sameeyey waxa ay tarto okay maxay noogu xiga hemworks waatan hem waaniga idin yara sheegay waxay idinka yara taabtay in ay tahay dhir geed daba baxa oo dabiici ah oo laga soo tuujiyey saliid waxay ka soo tuujiyeen saliidahan oo kala duwan oo kala nooca oo kala yara miligramkoodu kala badan yahay ka soo tuujiyeen waxa kale ka sameeyeen shaambooyadii timaha lagu isticmaalay bay ka sameeyeen skin care bay ka sameeyeen la marsanayay waxay ka sameeyeen cookier bay ka sameeyeen oo aydi waxa la siiyo ay ka sameeyeen oo aydi xayawaanka bisaaskii aydi waxa la siiyo coffee bay ka sameeyeen yani so many things bay ka sameeyeen bahal xanjo oo kala bay ka sameeyeen يعني markaad eegtid ham geedkii dhammaa wax kasta laga sameeyay maadaama faa'iidadiisa la ogaado inuu geed dabiici yahay oo waxyaalo badan dadka u taraya jirkeena waxa la yiraahdaa wuxuu leeyahay sistemo fara badan hadda reproductive system iyo ayanu leenahay marka science-ka biology waxa la dhiganayo ma ogtahay respiratory system iyo waxaasaynu leenahay ma ogtahay wax la yiraahdo endocannabinoid system weligeena maynu maqlin anigu ma garanayo de I don't know biology iyo science-ka la dhigan jiray midna kuma maqlin jirkeenu systemkani ka mid yahay waxa weeyaan dhakhaatiirtu way yaqaanaan laakiin ham waxa uu caawinayaa systemkaas oo caawinaya oo wax siinaya hadda qofka asma qaba oo kale xiiq qaba respiratory systemkiisa wax caawiya la siiyaa soo maaha qofka wadna xanuun qabo kale cardiologist baa loo geeyayo dhakhtarka wadnaha wuxuu soo siiyaa wax wadnaha ka caawiya soo maaha qof yani system kasta wax caawiyu leeyahay systemkani haddaba ham waxa la ogaaday dhakhaatiir badan ogaadeen in ay caawinayso geedkan hamka loo yaqaana uu systemkeenana caawinayo run ahaantii dhakhaatiirta ka sheekeeyay runaantii anu dhaktar ma ihi
caafimaadka waxba kama aqaano mana baranin just waxaan idin wadaagayaa wixii aan ka bartay tiimka iyo kamaniga intii aan ku jiray okay baraankaasi waa ka hemworks wuu tiro badan yahay wixii su-aaleed ka qabto insha allah qofkii ku saacismaba dib ugu laaban doontaa oo wixii dheeraada macluumaada ku siin doona body melt aynu ku soconno body melt waxa weeyaan isaguna mid yani haddii uu qofku doonayo in weight losskiisa inta uu isbareeyadii isagoo samaynayo brotiinna helo nafaqa dhammaystiran helo oo wuxuu qaadanaya body melt oo dhammaystiran package-ka dham ee isku xidhani wuu isla socdaa qofka doonaya wuu qaadanaya qofka doonaya wuxuu qaadanaya proteinka iyo bahalkii detox ayuu qaadanaya haddii aad isla qaadato faa'iidada aad ka helaysa haddaba maxay tahay haddaad xabad u qaatadina waad awooddaa haddaad isla jumladaysatana waad awooddaa maxaad helaysaa jirkii inaad qashinka ka saarto detox ku samayso wixii uu nafaqo u baahnaa aad uu helo lean muscle inaad waxaan kuri heshid oo uu jirkaagii muruq fiican usoo baxo muruqo fiican usoo baxaan oo calorie iyo wixii aad gubto muruqo ku dhismaan metabolismkaaga inuu fiicnaado oo maaragtay qof iska saara markaaba qashinkii jirka aad noqotid yacni package dhan oo isku dhammaystiran afartii tiir ee weight losska looga baahna afartiiba way buuxiyeen qoladan body melt brandkan wuu buuxiyey marka qofka doonaya inuu sameeyo weight loss dhammaystiran tan uu samaynayaa dad badan oo tiro badan oo sameeyey ayaa jira testimoniga waxaa kula wadaagi doona qofka videoga kuusoo diray ama kusoo casmay haddii aad doonaysid insha allah maxaa inoogu xiga essential oilski mantra brandkiiba inoogu xiga oo ka kooban oo qaybtan ugu horeysa ay tahay essential oilska qofka doonaya inuu isticmaalo uu isticmaali karaa waxa inoogu xiga mantra sense kuwii iyo cadarada yar la buufinaya iyaguna oo qaybta mantra brandka ka mid ah run ahaantii aad u fiican mana aha wax strong oo yani ku dilaya dadka qaar marka waxay kusoo buufinaya dhinaca dabaysha kaa maraan waxaan ku madaxa lagugu dhufanaya ma aha waxa weeyaan cadaro yaro qabow laakiin udgoon haddana weeyaan run ahaantii mantra synergy baa inoogu xigo essential oilska iyo bahal cannabinoidska la isku daray ah waxa inoogu xiga qaybta spaga oo scrabkii iyo wax kasta wadato oo u fiican dadka qaar spa bay aadaan haddii ay maaragtay time hayaan laakiin haddii aad tahay maaragtay qof busy ama hooyo busy ama gabadh busy oo waqti aan haynin oo shaqaysa full time oo waxaan kuri habeen iyo maalin waa la wada xiiqsan qof kasta mashquul weeyaan time aan hayn spa inay aado gurigaaga spa ka samaysanaysaa package-kana iibsanaysaa halkaagaasaad waxaadii ku dhammaysanaysaa waxa weeyaan spa grade weeyaan alaabtani waxa spaagu ku siinaayo 100,000 oo jeerba weliba ka fiican tahay okay maxay inoogu xiga cosmetology run ahaantii marka aan ka sheekaanay cosmetology ama makeup run ahaantii aad baan waxaan ku riday u noqdaa hyper oo kale wax kalena maahay waxa weeyaan baraankani makeupkani waxa uu ku fiican yahay oo uu kaga duwan yahay makeupbada suuqa makeup waxa weeyaan wax dee dumarku isku qurxiyaan la marsado laakiin sometimes waxa jira makeup ad marsanaysaa waxay ku oranayaan bahalkan foundationkan waxa weeyaan waa full coverage waa maxay coverage waa this coverage waa medium waxaasee makeupbada ku qoran waynu aragnay coverage-kan lagu leeyahay waxbuu qarinayaa waa caynkan waa sidan qofkii muxuu ku qarinayaa wixii ama jirkiisa uneven skinka ahaayee kala duwanaa ama hadduu madmadow lahaa ama hadduu finan lahaa ama hadduu something lahaa makeupka aad marsatid jirkaagii markaa waxa uu kaa qarinayaa waa one time use marka aad iska maydho ama wejiga aad ka nadiifisana wixii bartii bay joogaan oo makaa tegayaan at the same time waxaa laga yaabaa makeupkaasi inuu damage kusoo gaarsiiyo waayo mukawanaad badan oo lagu daray oo waxaa jira chemical ama toxic jirkaagi ku noqonayo oon khasaare mooye faa'iido kuu keeninin halkii mareed aroos ku tagtay ama xaflad ama banaanka dheyli aad ugu baxda beed marsato maalinlahaaga laga yaabaa inuu wixii coverage kuu sameeyo laakiin haddana damage kale ku gaarsiinaya cosmetology muxuu kaga duwan yahay waa clean makeup weeyaan maxaa clean ka dhiga haddaba aan isweydiine makeupbada marka la samaynayo kamanigan waa Mareykan baa laga leeyahay Americanku kamaniyada Mareykanka ee soo saara even North America oo marka tukaysa Canada iyo Mareykan way isla dhaamaan Canada waxyaalo badan oo toxic aad uma isticmaalaan Mareykan bay ka yara fiican yihiin Canada ayaa kasii fiican Europe baa kasii fiican European Unionka standardkoodu waa standard aynaan shaqo ku lahayn EU standard haddii aad maqashid waa meel ha u dhaafin weeyaan moogtahay makeupbada badanaa waxaa loogu sameeyay kamaniyo badan meelo kale markaas hadii Europe iyo meelaha loo dhoofiyaa laakiin exactly Europe lagu dhex sameeyay ama EU standardka raacaya ee haysta certificationka noocaas ama third party testing haysta makeupbada kale uu ka duwan yahay wayna ogna hadda everything Asia dadka loogu sameeyay kamani kasta alaabtiisu dirsadaa Asia loogu sameeyay hadhow toonana waa loo keenaa kambanigani wuxuu yiri maadaama ay Mareykankii dhammaa ee ay ku lahaayeen xarunta alaabta u sameynayay aanay waxyaalo badan oo toxic ah baangareynin ama mamnuucin anagu waa inaanu EU standard raacno waxa ay ka saareen 2,700 oo ingredients ah ama mukawanaadka alaabada laga sameeyo filariska ah ee lagu buuxiyo alaabada ah
ayay ka bixiyeen makeupkoodii maxay yidhaahdeen halkii uu full coverage ka noqon lahaa intuu ku kafargareeyo haddana damage kuu geysan lahaa waxtarkiisa waxyeeladiisu ay waxyeeladu badnaan lahayd jirkii wixii aad u baahnaydna ha kuu qabto waxyeelanii ku gaadhsiina quruxdaadii ha soo saaro jirkaagii lamacaankiisa ha soo saaro oo maalinta aad bilaa makeup tahay iyo maalinta aad makeupka marsan tahay jirkaagu yaan laga kala garanay dadka qaar baa markaad makeupka aanay lahayn aad ka cararaysaa wejigooda war maxaa kugu dhacay bisinkaad odhanaysaa walaal wejigi maxaa kaa helay waayo makeup la-aantii ma joogi karaan kani waxa weyn inuu wejigaagii nafaqa aad ka heshid at the same time damagekii kaa ilaaliyo gabowgii iyo cimri degdegii wejiga uu ku ridaayay uu kaa ilaaliyo weeyaan oo maalinta aad bilaa makeup tahay wejigaagii caadi dabiici noqdo oonad madmadowgii iyo wixii kugu badnaa iyo wixii toona yeelan skin carekooda markaad la isticmaashin iyo makeupka isticmaasho run ahaantii waxa weeyaan waxayna shaqo ku lahayn dadka isticmaalay farqiga u dhexeeya sanada isticmaalayay yacni waxaad dareemaysaa inay sii yaraanayaan baad moodaysaa makeup dadka qaar buu dedejiya cimri degdeg ku ridaa kan inaad sii yaraanaysa ayaad u malaysaa differenceka u dhexeeya makeupbada kale iyo makeupkan cosmetologyna halkaasuu idinka muuqdaa wixii fillers ahaa chemical ahaa toxic ahaa everything ba laga saaray wax xayawaan laga sameynay totally kuma jiro completely vegan weeyaan makeupkani xaydha doofaarka kala qaar lagu soo daray makeupbada ma ogtahay so waxyaalo badan oo qashina laga saaray cosmetology brand farqigaas ayuu leeyahay oo u dhexeeya uu makeupbada kale kaga duwan yahay qofka doonaya in wejigiisa wejigu waa passport waa meesha aynu dadka markaan la hadlayno qofka ishu ku dhacdo weeyaan qofka doonaya wejigiisa ilaashto run ahaantii ha ogaado skin careka iyo makeupkanba maxay inoogu xiga beyond oo run ahaantii ah chocolate aad u macaan aadna u fiican qofka doonaya in aanu miisaan ku kordhin marka uu wax yaro macaan cuno dadka qaar ba marka chocolate yar afka geliyaan ama nacnac yar afka geliyaan markaaba miisaan koraa ma ogtahay waa macaan wixii ma ogtahay waa sugar jirkaaga faad ahaan buu istoor garaynaya ma saarayo halkan waxaa lagu sameeyey kamanigani uu ugu talagalay beyond inay noqoto mid qofkii macaankii jirkiisa u baahan yahay kama maarbo dadka qaar ba iska raba sometimes wax yaro macaan afka gashtaan waxa yara macaan inaad iska cuntida chocolatka at the same time aanu kuu keenin wax baruur oo siyaada ah afkii kuu macaaneeyo laakiin maxaa laga sameeyey chocolate dabiici ah ee laga sameeyey wax faad ahna kuguma kordhinayo waa healthy snack waa healthy chocolate faa'iiduu leeyahay antioxidant xitaa isaga laftigiisa ka helisa dark chocolate baa laga sameeyey marka maxaa kaloo la socda shake baa la socda isaguna oo ah kii caadiga ahaa ee aad borotiinka ka dhiganaysay ood yara luxanayso haddii aad doonayso maxaa la socda kan geeska halkan yaala waxaa la yidhaahdaa isaga extreme baa la yidhahdaa waxa weeyaan energy drink weeyaan waa wax yaroo dhudhuban biyahaad ku shubanaysaa waad qasanaysaa waad cabaysaa halkii aad kafay habeen iyo maalin hayn lahayd koob intaa la eg aad cabi lahayd amaba qaxwe amaba shah waxii doona ama energy drink wuxuu doona ma noqdee waxyaalihii kaafiinta dabiiciga aan ahayn ay ku jirtay ee mukawanaadka badan lagu soo daray kan isagoo dabiici ayaad helaysaa kan iyo sprayda labadaba vitamin B12 baa ku jira oo run ahaantii vitamin B12 kan energy dabiiciya laga helaa uu dhaliyaa aad ka helaysaa jirkaagiina ma noqonayo energy intuu markaaba hyper noqdo uu markaaba istaaro haddana hadhowtooda hoos u dhacayo because energyga qaar kaafiinta laga helo kafeyga oo kale ah waxaa dhacda blood sugarkiina kor u qaadaan marka kor u qaadaan hadhowtooda wax yar kadibna hoos baad u dhacaysaa blood sugarkaagi crash baa kugu dhacaya sidii gaari waxaan ku uri ijiinkiisu xumaanaya jiqiqiqiq ayaad istaagaysaa hadhowtooda waxaad odhanaysaa waxaan u baahanahay xabad kaloo kafeeya anaa soo arkay anaa kafeyga cabi jiray waxaan ku uri waxa weeyaan run ahaantii markaad eegtid wax kafaygu haddii aad baratid oo tacawado waxa weeyaan aanad ka maarmaynin energy ahaan markaad u eegtid laakiin haddaad kan baratid kafay uma baahanid waad ka maarmaysa okay intani waxay sii sharaxaysaa un wixii ay taraayeen alaabadani okay maxaa inoogu xiga hem mama oo iyada laftigeedu ah dhar dabiici ah oo run ahaantii dadku waxay eegayaan hadda jeeraal wax environmentka ama meesha aynu ku noolahay u fiican oo dabiiciya eegayaan run ahaantii dharkani haddii aan eego xagga soomaali ahaan uma malayna dharay soomaali iibsanaysa inay tahay laakiin waxaad la wadaagi kartaa dadka kale ajaanibka maxaa inoogu xiga akashics oo ah isagu academigii dhammaa ee cryptocurrencyga iyo forexka iyo waxan oo dhan dadku ay ku baranayeen oo ay ku fahmayeen oo ah system dhammaystiran oo complete oo member markaad ka tahay amaba xubin aad ka tahay companigan aad dadka la wadaagayso oo u fududaynaya u sahlaya si ay tradingkooda si caqliyeysan ama miisaaman u dhigtaan dadka qaar baa inta wax dhigtaan hadhow khasaara oo ku odhanaya wixiiba waan khasaaray because they don't know xilliga coinku qiimo leeyahay xilligan anigu I have no idea say cryptocurrency waxaan u shaqayso laakiin inta aan ka maqlay aan ka fahmay waxa weeyaan weligeena ma dhiganin mana gelin
laakiin inta aan ka maqlay waxa weeyaan dadka qaar baa ku khasaara marka ay dhigtaan waxoodii hadhow toole waxa fiican inaad wixii adagoo yaqaana oo aan iskaga dul dhicin meeshii sidii duqsifood ku dhacayo kale dalaq waxbaa la dhigtaayo dhiga uun aan maqlin aana diganin laakiin adiga oo trainingkii haysta soo fahmay suuqii marketkii fahmay xilliga la dhigan karo qiimaha coinkaagu noqonayo waxaas dhan adoo soo fahmay aad ka qayb qaato oo dhigato hadhow toole oo marketkii baabad ku dhex jiraysaaba oo kuu fududaynaysaa barnaamijkan inaad ka mid noqoto oo dhigatid traydkii ood iibiso adiguna iibsato 120 over 120 plus crypto markets baad ka mid noqonaysaa ma ogtahay marka taasna waxa weeyaan dadka jecel ayaa loo hayaa qofkii doonaya inuu ka qayb qaato maxaa inoogu xiga travelkii amaba qaybtii safarka oo run ahaantii ah mid aad looga qaniyo adduunku waxaynu naqaanaa badanaa dadkeena qurbaha joogay inta wadankii joogtaa marka travel la goosanaya laba meelood baa la sameeyaa ama online-kaad ka goosanaysaa ama agency-gaad tegaysaa oo caadiga kuu soo geynaya ama diyaaradaha caadiga dee toos ula hadlaysaa waa the same thing online-ka iyo diyaaraddu air canada kalaan rabaa inaan hadda goosto midkan oo kale either air canadaan garaacaya toos ula hadlaya telefoonkooda ii jaraysa flightka ama experience galiyaan ka goosanaya or agency ruuxa magaaladeeda ku yeelan tagaya ii soo jaray tigirkii waa the same marka marketka markaad eegayso falaydada la jarayo iskuma jabiyaan kaad online-ka ka goosanaysa ka air canada ka expedia intuba waxay ku qasban yihiin in isku qiimo noqdaan because legally waxay ku jiraan heshiis ah inaan isku jabinin bay ku jiraan high love travel isagu legal ma qabanayo heshiiskaas kama mid aha systemka iyo waxaa kama mid aha wuxuu ku siinayaa discount qeyral xad ah oo ayagu ay kuugu talagaleen 70% discount oo publica aad ka helaysid ka badan bay ku siinayaan oo hoteeladii leh oo ka gaari karaysigii leh markaad gaari karaysanaysa magaalo kala tegayso oo leh maxaa la dhahaa meeshii dalxiiska leh kaba soo qaad hadda tusaalaan ku siinaya matalan oo kale anu kanadaan joogan waxaan rabaa inaan maraykanka tago kale disneyland oo kale rabaa inaan aado disneyland markaan tagay maxaan u baahanay inaan disneyland wixii daadaawado oon dee soo dalxiisan soo aado inaan gaari karaysto inaan hotel karaysto inaan flightna goosto intaas wax baan u baahanahay intii oo waxba halkan aan ka helaya oo 70% discount ah flightki baan goosanaya discount baan ku helay gaarigii baan goosanaya karadiisii hotelkii baan goosanaya discount baan ku helay meeshii aan tagay waxyeele aan daawanay sightseeingkii ama wixii aan samaynayay discount baan ku helay intiiba all in one waana gidan kula meeshan wax walba hayo weeyaan website-ka heer baad everything ka helaysa oo aad u baahan tahay halkaasaad ka goosanaysaa xubin baad ka noqonaysaa markaad xubin ka noqoto xitaa waxa jira hadda uu soo saaray kamanigayga mid ah prepaid oo kale waxaad dhigatay $190 baad dhigatay ama $199 baad dhigatay adigu xubin adigoon xitaa ka noqonin one time baad qaadatay waxaad tiri one time-ka waxaan safrayaa sanadka soo socda bisha 6aad baan safrayaa samarka prepaid baad hadda sii goosatay $199 aad goosatay waxay kuu save garaynaysaa almost 1,500 oo travel saving bay ku siinaysaa oo hotelkii oo flightki oo everything isku jira tusaale kale haddii aan idin siiyo hadda ATM mashiinada lacagaha lagala soo baxo dadka qurbaha jooga markaad kaarkaaga dad qaata rabto inaad withdrawal samaysto kaarkaaga accountkaaga lacag kala soo baxdo haddii aad kaarkaaga intood geliso aad taabato $200 oo 1,500 kuu soo saara ka waran oo tiraa 200 soo saar mashiinkaasoo maalin kasta maa dul taagnaateen war mashiinkii lacagta ii tufiyey soo daadinaya gee unbaad odhan layd ma ogtahay kamaa tagteen waa saasoo kale waxaa yaraad dhigtay prepaidka ah waxa ay kuu dhalaysaa oo ay ku siinaysaa saving intaasa maalinta aad go'aansato inaad baxdo ood travel garayso savingkaaga meeshii ku yaala ayaad qaadatay waa prepaid ma dhacaayo xilligaa doontaad isticmaali kartaa waad sii iibsatay wuu kuu yaala expiry date ma laha maalintaad soo go'aansato maad kacday haddii aad rabto inaad subscription samaysana labada option baad haystaa subscription ood member tahay dadka 24/7 dee dhoofee safre ama businesska ama caynkan ee socdo una fadhiisanay haddaad tahayna member baad noqonaysaa bishii wax yar baa lagaa qaadaya savingkiina waa isku mid haddaad sanadkii hal mar safartana prepaidkaad qaadanaysaa wixii Expedia iyo hotel.com iyo Air Canada qaraac iyo United Air qaraac iyo Emirates qaraac iyo waxaana waad ka baxday inta wadan uu ka shaqeeyo oo dhan website-ka ka arkaysa diyaaradaha waaweyn oo dhan baad ka helaysaa waa Air Canada United Air waxaan ku riday Emirateski Turkish Airways yani diyaarad weyn oo kasta oo baxda way samaynaysaa waxan waad ku helaysaa halkaas mad galaysaa hawshaada wad wadanaysaa waxaa jira presentation oo sheekay oo sharaxa ayaa jira run ahaanti mid laga gayoonayo maaha anigu hadda intaa yar waan idiin soo ururiyay waa idiin soo koobay si aad u fahantaan faa'iidada ay leedahay qofka doonaya marka intuu ganacsigan ka mid noqdo uu isdiiwaan geliyo travelkaas ka shaqaysto wuu awoodaa travel agency ka dhex noqo ka dhex furo waad awoodaa bardhagyadii kalena adigoo ku dhex iibinaya tanna waad samayn kartaa marka that's why idiin lahaa kamanigani alaabadiis waxa weeyaan wax walba haya weeyaan
weliba travelku dadku aad bay ugu bogeen because qof kastoo safra lacag buu rabaa inuu seef gareeyo dadku safarka way jecel yihiin laakiin haddana maxaa xinibaya dadka qaar waqti baa xinibaya dadka qaarna lacag baa xinibaysa marka hadda lacag ku xinibaysa lugaa ku haysay waa tan faa'iidadii halkan aad ka helaysaa okay maxay noogu xigaa fuel factor x ffx baa la idhahdaa bahalkan run ahaantii isaga laftigiisa adduunka hadda uu ka qayliyey taariikhdiisa ama historygiisa bahalkan waxa uu suuqa ku jiray oo la isticmaalayay muddo 25 sano almost 30 sano ku dhow la isticmaalayay bahalkan uu jiray waxaan isticmaalay kali warshadaha iyo meelaha constructionkii waxa dadka caadiga anigoo kale iyo adigoo kale available mu ahayn ma heli kareenin hadda markii shidaalkii qaaliyoobay cirka isku shareeray ee wax kasta waxaan ku riday adduunkii isla kacay waxaan ku meel kasta wadankii qurbe everywhere shidaalku waa qaali hadda ayaa bahalkan suuqa loo ogolaaday inuu soo galo oo dadka public ah ama jamhuurku ka faa'iideysto dadka caadiga anigii adigoo kala ah oo laga iibiyo waa labada nooc dhowr nooc actually laba nooc maahay waa caagada yar oo aad dhowr jeer ku shubanayso gaariga ilaa 5 jeer isticmaalayso iyo tan yar oo one time use oo yar yar tan mid weyn buu leeyahay 5 litir mid weyn oo caagada buu leeyahay yani wuu badbadan yahay marka qofka yar ee caadiga wuxuu iska iibsanaya tu yar hadduu kambani weyn wuxuu iibsanaya wax bahasha weyn ee foostado kala ama 5 litir qaad iibsanaya qof kasta wuxuu doono maxay u fiican tahay gaasti bay kuu marxinaysaa injinkaaga bay kuu fiicnaysiinaysaa wixii rusting ama waxaan ku daxal iyo birta ku dhici lahayd oo dhan bay ka ilaalinaysaa waa solution waxa weeyaan u fiican gaadhiga injinka u fiican gaastina kuu marxinaysa waxay kuu save garanaysaa ugu yaraan 20 oo 30% gaastaadii haddii aad every week ku shuban jirtay oo kale gaadhigaaga shidaalka oo shidaaleyn jirtay waxaa laga yaabaa inay 3-4 cisho dheeraada ku siiso oo gaasti kuu marxisay kuu tashiisho ayaa dhici karta maxaa lagu shubayaa markaa magaadhigu kaliya maya wax kastay ku shaqaysaa baashani any engine bay ku shaqaysaa waxay ku shaqaysaa matoorada waxay ku shaqaysaa dooniyaha waxay ku shaqaysaa injiinada ee bahalaha constructionada waaweyn waxay ku shaqaysaa generatorada dabka laga dhaliyo kamanigayaga CEO-giis maalin ka sheekeynay wuxuu suuqayaga ugu weynaa ganacsiga ee FFX laga iibsada FFX waxa weeyaan Africa ayuu dhigay waa qaaradaas because dad badani ma haystaan buri leer 24/7 shidan generator shitan generatorada shidanayeen shidaalka dahabiin maalin way shidanta baasha ma ogtahay inuu u tashiilmo u marxo ayay ugu talagalay marka iyada ku shubaana ku isticmaalaan saasay suuqayga ugu weyni Afrika u tahay South Africa iyo Nairobi iyo meelaha Afrikadaas la wada dhoofiyaa ma ogtahay marka that is why dadka hadda uga faa'iideysanayaan subxaanallah marka waa bahal aad u fiican dooni baad ku shuban kartaa taraaga weyn baad ku shuban kartaa mootooyinka carara gaarigaaga everything ay u fiican tahay ku shubashadeedii waxaasna waa easy ijinka markuu gaarigaagu ka madho shidaalku isagoo aniga shalay toolo kale markaan kusoo shubanayay gaarigayga shidaalku markuu igu shidmay calaamadeera ii soo baxday shidaalku habeennimadii hore igu shidmay oo kale ayaan kusoo shubtay maalnimadii dambe ma inuu gaarigu madho eber uu noqdo iyadoo wax yar isaga jirtood ku shubaysaa aslaan uu ku tuso inuu fuelkaagii low yahay uu sii maranayo saacadaad xaggaa usii socoto in yar iyadoo ku jirtood ku shubi kartaa laakiin waa inuu madho marka hore shidaalku waa inuu madho majority shidaalku in eber noqdo weeyaan taangiga iyadoo waxay ku jiraan aad in yar aad ku dhaqaaqdaa una ay ku jirto waa inaad ku shubto haddii ilaahay qadaro markaad ku shubto gaastana kaga daba shubtid okay maxay noogu xiga affiliate programkan hadda ka sheekeynana inta waxaynu kaga dhamaanay ama ku soo gabagabeynay alaabadii kambanigu iibinayo oo aan midna mid ka dhicin oo run ahaantii ah wax guri kasta iyo shakhsi kasta u baahan yahay oo qof kasta oo adduunka nooli uu ka faa'iidayo waan idin kala wax walba haya weeyaan marka hore idin sheegayay affiliate programkan haddaba markaad ka mid noqoto kambanigan laba nooc baad uga mid noqon kartaa ama macmiil baad noqonaysaa ama waxaad noqonaysaa ganacsade ka ganacsada sidoo kale oo affiliate programka ku soo biira sidii aan hore idinku sheegay compensation plankiisu waxa weeye very generous gabadha China ayaabana sheegtay marar badan oo tirade waxaan Josh kula taliyay inuu waxaan fair noqdo 7 nooc oo kala duwan ayaa lacagta loo bixiyaa 7 different ways baa lacagta ku helaysaa waa fair and balance sidii aan idin sheegay waa wax cadaaliya oo ay ka wada hadleen labada qof ee kambaniga aasaasay run ahaantii marka aad eegtid marka aad affiliate programka ka mid noqotid ee aad ku soo biirtid waxaan waxa ka sheekeynaa waxa farqiga u dhaxeeya traditional business kiya ka kale compensation balaankooda aad ka mid noqotid qaabkeeba lacagta ku helaysaa hadaba waa adigana alaabadii waad fahantay alaabadii waad suuq geynaysaa anu markaan suuq geeyo faa'iidadeyda hadaba aan dhalinayay ama meeshan ka keenay sideen ku helaya 7 nooc oo kala duwan bad dhaqaale ku samayn kartaa laba kamid ah waxa weeyaan waa weekly waa usbuucle weeyaan
kan koobaad waxaa loo yaqaanaa customer acquisition bonus waa usbuucle marka macmiil inta uu linkigaaga ama websiteka ilan technologyga khatarta aba lagaaga faa'iideeyo markaad saa isku diiwaangeliso markiiba website baa lagu siiya aad iska leedo magacaaga usernamekaaga waxaa ku qoran adiga gaar kuu ah oo laga garanayo kuwa kale ayaa lagu siiyey saadad qof ula wadaagto hadduu qofki markaaba kaba soo qaad kaa dalbaday tigaastoo kale fuel factor x kaa dalbaday isla markuu saa u iibsado wiigaas waxaa kuu soo dhacaya customer acquisition bonuskaagii up to 50% business volume ayaa lagu siinaya wixii halkaa kasoo galay 50% kambaniyada badankooda 20% 30% bay bixiyaan kambaniga ugu qaniisana ku odhanaya waxaan kuri oodaan jebinay 35-40 buu bixiyaa kambanigana 10 siyaado uu ku daray that's why uu tiri China waa inuu fair noqdo ayaan rabaa annagaa soo gubanay dadkanina iyo gubanin sidaa la ashligeed bay u haystaan kambaniga 300,000 oo affiliate u haystaan ugu badan yihiin dad badan uga shaqaystaan taas waa weekly waa usbuucle saasaad ku heshay waa macaamilkaaga wuxuu iibsaday waxa weeyaan dilaalkiisii jam star bonus baa lagu siinaya isaguna weekly commission ah marka dad cusub oo ganacsiga ka mid ay soo galaan tiimkaaga ka mid noqdaan asagana maxaa lagu siinayaa mushqaayadii shaqadan aad qabanayso mid dadkani qabanayaan kulli ma ogtahay maadaamay soo galeen ka mid noqdeen adigana maxaa lagu leeyahay abaalmarin baanu ku siinay qofkan aad refer garaysay fursadda uga faa'iideysay adiguna faa'iidad nagu leedahay waa marka ayaguna wax ka dalbadaan kambaniga weeyaan downlinekaagu 2 qof baad hadda keentay 2 affiliate baad keentay waxay dhahdeen alla makeupkaan rabaa bay miditri qofkii kale wuxuu waryahay bahasha gaaskaan rabaa iyagina waxbay dalbadeen markiiba maxaa lagu siiyey jam star bonus oo ah wixii uu qofku markuu saa usoo galo uu bilaabo la siinaya waa weekla iyaduna weeyaan waa mar kastood qof keentid tira ma laha dadka aad keenaysaa laguma odhanayo 5 baad keentay maanta jooji hiblaayoy laymarne rooday 6 baad keentay jooji 100 baad keeni kartaa adiga kartidaaday ku xiran tahay bisaad u shaqaysato dilaalinta suuqeena maxay samayn jireen dilaalba dilaal buu ka lacag badnaa qofku maaragtay ka hadal badan buu ka lacag badnaa intaasoo waxaan ku dhihi especially badanaa dilaalinta aad waxay ugu badnaan meelaha xoolaha lagu iibiyo siiladaha ma ogtahay dilaalada qaar unbaba la eegan jirayba oo waxaan ku dhihi ganacsatada odhan jireen adigu ii dilaal adaan ku rabaaye waryaha iisoo dilaalin because waxa weeyaan dadkay soo heli og yihiin markaa laguma odhan karayo jooji waa saad usoo dilaasho ugu keento kamanigan dad ayuu isaguna kuu siinaya binary commissionkiiba isaguna jiro tii la yaqaanay oo kambaniyada kalena maaragta ay wada leeyihiin badankoodu laakiin isagu muxuu bixiyaa 10 to 20% inta u dhaxaysa kambaniyada qaar waxay bixiyaan 6% 7% 8% bay bixiyaan 10 to 20% bay kani ku siinayaan kolba levelka aad marayso leveladoodina halkan ayay ku qoran tahay halkan aynu ka arkaynaa level kasta magaciisa kolba levelka aad joogto laakiin 10% bay ka bilaabantaa 10 15 up to 20 bay u dhaxaysa waa marka team dhisato waa monthly waa wax kuu soconaya business volume-ka ka soo xarooday teamkaaga ayay ku xiran tahay tani waxa weeyaan adiga iyo dadkii kaa farcamay qof kasta uu shaqaynaya waa waxaa wareegaya qof kasta customer buu keenaya macmiil buu keenaya dadka ganacsiga ka soo geli keenaya adigii baa keenaya wixii baa ururaya business volume bay noqonaysaa and then up to 85% business volume-kaas ayaa lagu beegaranaya oo bilo ah maxay leeyihin wax loo yaqaano check matching adina oo run ahaantii ay kaga duwan yihiin kambaniyada malaha kambaniyo badani check matchingkan marka aad gaadhid maaragtay 5k affiliate ay kaaga bilaabmaysaa run ahaantii waxa weeyaan mid aad ula yaabaso markaad eegtid check matchingkan dadka qaar waxay ku odhanayaan check matchingkan waabanu ka dharagnayba kambaniga kamid yihiin why because waxaa lagu matchgaraynayaa from generation 1 ilaa 6 inta u dhaxaysa ayaa matchingka waxaa lagugu siinayaa 10%, 20%, 30% up to all the way ay 5% ka noqonayso ay lagugu siinaya compensation balanka haddii aanan khaldanayn check matching halkan idinka yara tusi doona I think ikaadi wax yar check matching halkan buu ku jiraa si adiga ila eegtaan jump star bonus weeyaan kaas check matching wax yar baan tusaya dad halka arkaysaan yes waka 5k buu ka bilaabmaa ilaa level waxaad ku leedahay 4 yeah waa 30% 20% 10% 10% weeyaan check matching waka saas u shaqeeya okay check matchingkaasi waxa weeyaan lacag qadarkeeda aanan malin karin ma ogtahay yacni qofka check matchingkaasoo keliya ta qaata ayaa xitaa mushaharkiisa uu shaqada caadiga full time ka dadka shaqeeya ka mushahar badnaanaya okay maxay noogu xiga rank bonuses ta la yidhaahdo rank bonus waxa weeyaan waa one time weeyaan waa hal mar baa lagu siinayaa waa mar kasta oo aad kor u socoto weeyaan bilowga markaad soo gasho waxaad ku soo galaysaa sometimes builder baad ku soo galaysaa sometimes executive waxaad ku soo gasho wax doonaha noqday ranku halkan ka bilaabmaa 1k all the way master affiliate 1k affiliate 5k affiliate 10k affiliate all the way master affiliate baad noqonaysaa waxaa lagu siinayaa one time payment qofka 1k gaadho 100 buu leeyahay 500 buu leeyahay ilaa iyo 500 oo kun bay soconaysaa
indhaha dadka qaar bay soo baxaan 500 kun baan helaya why not master affiliate hadaad noqoto waad helaysaa exactly waxa halkaa ku qorani waa sax tana wax weyn monthly rank bonuses tan one time ka markaad hesho tana waa bilihii kuu soconaya waa potential inta aad samayn karto kaba soo qaad 1k affiliate baa tahay bishii waxaad samayn kartaa lacag gaadhaysa almost $4,000 baad samayn kartaa 1k affiliate markaad tahay monthly oo xagga rank bonuseska ah compensation planka xagganay kaga qoran tahay actually halkan oo kale waa taas 1k affiliate qofka ay up to 15% baa lagugu dhufanayaa 4,000 baad a month samayn kartaa adiga iyo teamkaaga business volumekiisa marka la eego 1k affiliate-ku bilahana konton baa kuu soo dhacaya laakiin earning potentialkaagu 4,000 buu noqon karaa 1k marka aad tahay maxaa inoogu xiga global business pool ayaa inoogu xiga isaguna bonus pool actually aan idhahday cafwan global bonus poolkaas waxa weeyaan share baad ku yeelanaysaa companyga 2% bay gaar u dhigaan wixii kasoo xarooda companyga revenue every month deedna waxay dhahaan dadka abaalmarinay siino qofka waa la kala shaqo badan yahay qof baan waxba qabaninba moogtan customerna keenin ganacsigana dadka kala wadaagin oo iska fadhiya isaguna alaabta iska iibsado oo yidhahda alaabta maa ka dhargaya qofka iyo dee qofkii 20 qof keena isku si looma abaalmarinayo ma ogtahay waa abaalmarintii markaa bil kasta marka ay dhammaato sheerarka dadka lagu siinayay bilaa loo bixiyaa waxaa la leeyahay heblaayo axmedow nuuray maanta waxaasaad keentay intaasoo qof baad keentay abaalmarinteedu waa tan sidaas ardayga iskuulka joogaba ka imtixaanka ee keeniya ka sii dhii keena isku si looba abaalmariyo marka taasina waa taas compensation planka weeyaan technology-ga waynu kasoo hadalay in uu technology cajiiba bahalkani leeyahay oo aan lala barbar dhigi karin testimony-gan wax yar ka hadlaynaa insha allahu tacaala testimony-gan ku dheeraan mayno waqtigo inagu ciriiriyo dartii haddii aan laba wax kasoo qaato run ahaantii Robert Hollis oo liidayaasha aadka ugu sarsareeya iyo Candace baan idinka sheekeynaya Candace teamkeedaan ka midnay anaku ayadii ninkeeduba waxay ka mid yihiin businesska ayay ku jiraan maalin dhow talaayo ninkeedu 500k affiliate noqday isagana waa intus doonaa insha allah Robert wuxuu ku jiray almost industry-ga muddo 30 sano aan buu dhex socday waxa weeyaan the best seller buugiisu Amazon buu ku jiraa laga iibsada oo uu qoro ganacsiga waxa ka sheekeeyo wuxuu ka mid ahaa company kale ka mid ahaa Robert Hollis isagii gabadhiisu hadda MDC bay ka mid yihiin ama Medallion Chase maalin dhaweyd buu wareysanayay CEO-ga ama president-ka company-ga wuxuu ku yiri maxaad sababay buu sababtay ii sheeg buu inaad calankaagi ka taagato hadda Medallion Chase waxaan arkay buu yiri markaas ugu jawaabay visionka iyo missionka aad leedihiin Medallion Chase meesha u socdaan arkay waxaan ogaaday company-da markaan isha mariyay 30 sano ku dhex jirayay in saa gacanta u soo mariyay indha u soo mariyay in uu yahay company-ga aan maanta ku dabkayga ku qabsan karo aan ag dhigan karaan fahmay buu yiri meesha aad u socotaan baan arkay buu yiri care garantiina arkay buu yiri family kale inaad tihiin baan arkay buu yiri Facebook live-kiisu YouTube-na uu ku jiraa waraysiga lala yeeshay waad soo heli kartaan Robert Hollis oo wareysanayo Josh Swagley waxaas dhan markaan ogaaday buu yiri waxa isu ka qabatay buu yiri anigoo markii hore millionaire ahaa buu yiri company kale oo 60 qof oo millionaire ana ka soo saaray company-da hore inaan maanta kan ka mid noqdo waxa kaliftay because company-ga ayaan arkay waxa uu socdo waxa kale oo soo jiitay alaabada aad haysaan meel laga ma helayo wax walba hay caadiya tihiin waxaan idin sheegay markaan bilaabay barnaamijka sala ashrigeeda ay ugu kaliftay gabadhan iyadoo kale Jana waxaan jeedaa Candace Davis waxa weeyaan gabadha leaderkayga anaga teamkeedan ka mid nahay idii odageeda ayada laftigeeda insurance agent 15 sano ahayd ganacsigan way soo gashay 15 sano 14 sano ku dhex jirtay way dhex fadhiday company kale ka soo gashay haddana maanta Medallion Chase bay fadhidaan waa dadka 7 figure income ka sameeyay millionaire ah iyada laftigeedu hadda waxay taaganta anu lacag uma baahnin hadda maanta waan haystaa lacag waan haystaa guri waan haystaa gaari waan haystaa laakiin maxaan u xiiqsanay u taaganahay heerka aan maanta gaadhin qof kasta gaarsiiyo ayadii odageed askari buu ahaan jiray almost 17 sano uu ka fadhiistay hadda police buu ahaa ama Mareykana uu ka fadhiistay ganacsigan uu soo galay wuxuu yiri kuma doorsanay waxna waxa kale iyadu aad uga sheekaysay weight loss-ka barnaamijyadan ay samaysay ispreeyada ah iyo body milk iyo waxaas oo dhan ba isticmaashay weight loss-keeda heerkii ay ka gaadhay way ka sheekaynaysaa waa halkaa kugu leh almost 16 pounds baan body milk iyadiyo husbandkeedu ay u lose gareeyay waxa kale ay ka sheekaynaysaa CBD oil ay ka sheekaynaysaa odageeda chili baa laga bedelay nin askariyo taagni iyo socod ku dhamaystay baha 17 sano chili baa laga bedelayaa bal soo istaagay dhakhtarku wuxuu chilibka in laga bedelo waa qasab CBD oil shan isticmaalay muddo isticmaalay new waxa jira chilib cusub uma baahanin ka maarmay subxaanallah marka waa waxyaalaha aadka markaad u eegtid aad arkayso testimony-ga lama soo koobi karo waxaan dhan waad akhri kartaan screen-ka ka akhrista waa la riyaasha company-ga ka mid yihiin labadaasaan ka soo qaatay just to see in ay idin tusiyo faa'iidada alaabaduna ay leedahay company-ga dadku waxay ku jeclaadeen u soo galiyaan
iyo qaabka aad dhaqaale uga samayn karto waxaan rabaa waxay inaan tuso hadda iyada laftigeeda oo aan idinla sheer garaynayaa wiilkan hadda aan idiin sheegaya in tiimkiisa ka mid nahay isaga iyo xaaskiisana isla shaqaysta waxaa la dhahaa Javan Davis baa la dhahaa waa kan shalay bay soo dhigtay Facebookeeda waa kan 17 years waxay ku soo qortay yani gaadhigii from cup car to dream car buu ku bedelay waxa kaloo lagu soo qoray halkan wuxuu noqday 500k buu noqday waxa lagu soo qoray meesha loo yaqaan businessforum.org baa lagu soo qoray waxa weeyaan journaalka amaba website-ka aan ka sheekeeyo uun MLM-ka haddii aad website-kan gasho waxaad ku ogaanaysaa kambaniyada MLM-ka sida u kala sarreeyaan halkan lagu soo qoray in uu maanta 500k affiliate noqday oo uu run ahaantii ka midho dhaliyay ganacsigan waa mid aad adigu samayn kartid anigu aan samayn karo qof kastaa samayn karo haddii aad doonayso inaad dhaqaale dhaxalgal ka samayso hadda maanta wuxuu noqday 500k affiliate 500k affiliate markaynu compensation planka ku noqono imsu samaynaya 500kgu 500,000 ayuu samaynaya 500,000 monthly earning potential weeyaan 500k affiliate marka run ahaantii waxa weeyaan wax aad u muhiim inaad ogaatid fursadda meeshan ku jirta inaad ka faa'iideysato walaalahan uga faa'iideyso waa mid muhiim ah haddii ay qofku doonayo inuu ka mid noqdo saan idiin sheegay laba dariiqo ayuu kusoo geli karaa inuu macmiil noqdo iyo in uu noqdo affiliate waa kan become a customer become affiliate labadaba waa free wax lacag lagama rabo nothing kambaniga markuu aasaasay lacag baa lagu soo geli jiray George iyo China laakiin markii dambe waxay ogaadeen wuxuu waan joojiyay lacagtii because isaga markuu kambaniyada bilaabayay MLM-ka 15 sano kahor wuxuu broke baan ahaa arday baan ahaa waxba maan haysanin $600 baan ku galay buri industry kambanigii ugu horeeyay adeerkii baan ka soo deynsaday 600 markii ugu horeeyeen lacagta sameeyay baan 600 deyntii iska celiyay hadda wuxuu ogaaday marka wuxuu waxaan noo cadaatay aan aragnay dad badan oo dan yari inay jiraan ama baan lacag haysan ama student dad badan iska baroogo iska jeeb maran marka inay uga faa'iideeyaan qofkii soo galay intuu bilaash ku soo galo la siiyo wax kasta technology la siiyo alaabadii meesha ka buuxda wataas shaqayso qof waxa tahay cunto loo soo kariyo la soo horgaliyo cun afka in lagu guro maaha markaas oo kale magtu weyn adigu sa isugu dadasho cuntadii ma ogteed haf ka siiso weeyaan saasa kale ka dhigay cunto karsan baa lagu siiyay ka dharag weeyaan waxa lagu siiyay website cajiiba lagu siiyay intaas oo alaab dhex taalo suuq gee lacagna maad kala bixin adiguna alaabta ka faa'iideyso isticmaal kiishadalka gurigaaga u baahan gaarigaaga u baahan weydloska gurigaaga u baahan makeup-ka dad gabartii aad u baahan wiil haddaad tahay waxyaalii proteinka waxa aad u baahan caafimaadkaaga u baahan CBD oil baad u baahan tahay skin care baad u baahan yani everything shaambadii timaado wax aanad u baahnayn meesha kuma jirto kana adeega dukaankaaga adiga dadkii la wadaag at the same time lacagna ka samee halkee laga helaa subxaan allah waxa weeyaan run ahaantii waxaaga wax lagugu dar weeyaan marka inaad ka faa'iidid weeyaan labada dariiqad kusoo galaysaa wax lacag lagama rabo free baad kusoo galaysaa hadhow toole all the way up baad u soconaysaa saad u shaqaysanayso waaniga idin tusay waxa weeyaan qof iyo dadaalkiisa xitaa customerka marka uu soo galo wixii customer doonaya inay ku soo galaan maanta customer kale haddii uu la wadaago asaga laftigiisu muxuu helayaa in uu abaalmarin helo $10 oo kale la siiyo oo abaalmarin lagugu soo shubo gift card lagu wadaado ku adeega adiga laftigaagu intaas ayna noogu soo koobayaa opportunity-geenii ahaa inaad adigoo gurigaaga jooga dhaqaale dhaxalgal ah ka samaysa kambanigeen loo yaqaan my daily choice run ahaantii haddii aad wax su'aalo ka qabto amaba wax madmadow kaaga jiraan waxayna ka soo hadalay qofka ku soo cusumay ayaad dib ugu laabanaysaa amaba qofka videoga link ee kuu soo diray ee kula wadaagay videogan ayaad insha Allah ku noqon doontaa sidaasi waxay noo balanay insha Allah qof kasta inuu dhaqaale ka sameeyo kamanigan si dhaqaale dhaxalgal ah qof kasta u baahan yahay oo legacy uu ka tago run ahaantii awlaadaada iyo familkaaga aad uga tagtid sidaa waxaan ka tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh